munaasabadan oo lahaa abaabulkeeda maamulka gobolka Banaadir ayaa waxay ka qabsoontay degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir. Ujeedada ayaa waxay ahayd in la sii wado mashruuca dhisa dalkaaga oo uu horey ugu dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo laga arkay miro dhalkeeda kadib markii dhaqaalo ay iska ururiyeen shacabka Soomaaliyeed lagu dhisay aqalka dawladda hoose ee Xamar oo ay burbur xambaarsan ur ku taala ay ku reebeen dagaaladii sukeeyay ee dalka. maamulka gobolka waxa uu sheegay inay bilaabayaan qaadista canshuuraadka guryaha si loogu dhiso jidadka muhiimka u ah caasimadda dalka. waxaana ku sugnaa madasha ay ka dhaceysay munaasabadan xeelaliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir, gudoomiyaha gobolka Banaadir General Xasan Maxamed Xuseen Mungaab, gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi, gudoomiyaha ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo dimuqraadiyiinta maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye, taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka General Cali Xirsi Barre Cali Gaab, taliyaha ciidanka nabad sugidda qaybta gobolka, qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka, gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Marwo Jawaahir Barqab iyo sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka ururka haweenka Marwo Canab, qaybaha kala duwan ee ururada bulshada, waxgarad iyo gobolada fanaaniinta qaranka ee waabari. ugu horeyn waxaa hadashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Marwo Jawaahir Barqab, waxa ay bogaadisay guulaha maamulka gobolka uu gaadhay iyo dardargelinta mashruuca dalkaaga dhisa iyo ahmiyadda ay leedahay bixinta cashuuraadka. si taa la mid ah gudoomiyaha ku-xigeenka ururka haweenka qaranka Marwo Canab oo iyana ku amaantay maamulka gobolka sida ay ugu go'an tahay in la bidhaamiyo bilicda caasimadda iyo in loo wada istaago hagaajinta haykalka dawladnimadeena ee Soomaaliya. gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu madal joog ka ahaado munaasabadan. sidoo kale waxa uu sheegay in gobolka Shabeellada Hoose aan la'aantiisa gobolka Banaadir aan waxba qabsan karin. sidoo kale waxa uu soo jeediyay inay shacabku ay bixiyaan canshuuraadka. gunaanudka waxaa hadallo ka jeediyay xeelaliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo si kooban uga hadlay qiimaha ay leedahay bixinta canshuuraadka oo laga qaadayo muwaadinka dalkiisana loogu dhisayo. xeelaliye waxa uu sheegay inuu ballan qaadayo haddii la musuqmaasuqa dakhliga laga qaado shicibka in cadaaladda la horkeenayo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir haddii aan dhaqaalahaasi loo isticmaalin hagaajinta wadooyinka caasimadda iyo sidoo kale in la soo nooleeyo goobaha muhiimka u ah dalka. ugu dambeyntii gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir General Maxamed Xasan Xuseen Mungaab ayaa soo xiray munaasabadda, waxaana uu meesha ka sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu bilaabayo sanadkiiba inuu qaado canshuuraadka guryaha, waxaana uu sheegay ciddii bixin weyda lacagtaasi canshuuraadka ah tallaabo cad laga qaadi doono. waxaana uu sheegay ciddii ka dhagaadeegta in loo gudbin doono hay-adaha dastuuriga ee dalka sida maxkamadaha. waxaana uu ka codsaday xeeraaliyuhu in dadka ka soo horjeesada bixinta canshuuraadka dalka in tallaabo cad laga qaado. qorshahan maamulka gobolka Banaadir waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dhawaan madaxweynaha dalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay mashruuca dhisa dalkaaga kadib markii madaxweynuhu uu dhagax dhigay aqalka dawladda hoose ee Xamar, taasi oo dhaqaale laga ururiyay shacabka Soomaaliyeed ay ugu dambeyntii noqotay in shacabku haddii ay midoobaan ay wax dhisan karaan waxna hagaajisan karaan. si taa ay u sii socota ayuu maamulka gobolku qorsheynayaa in dakhli laga ururiyo shicibka in haddana lagu hagaajiyo wadooyinka muhiimka u ah magaalada caasimadda ee Muqdisho. Idruus Maxamuud Iimaan, telefishinka Somali News, magaalada Muqdisho.